السلام عليكم دمان أصحابتي كحيران أمجد أكاديمي كسو دوادا عشر كاني لباد كاسو آنو كوبرانينو برايس أكشن استراتيجي هذا عشر كاني كواد وحانو كوغا هذالني أما آنو كسو براني وحياوها أساس كواه برايس أكشن كا أما وحياوها مهم كواه سيدا لاويس إيا هاي سيدا آنو استعمالنو time frame كان استعمالينو iyo waxyaabo kale oo muhiim ah ayaan ku soo baranay cashirkeeni koowaad. Haddaba haddii aadan soo daawan cashirkaas waxaad ka heli kartaa qaybta hoose. Mahadsanid. haddii aan guda galno cashirkeena maanta waxaanu ku baran doonaa ascending and descending. waxaanu ognahay marka aan joogno marketka in mar walba qiimaha oo ku jiro trendy kuwaasoo kala ah up trendy, down trendy, sometimes oo qiimaha gala ranging. Okay, haddii aan aragno tusaale aan soo qaadano, haddii qiimaha oo ku jiro haddii uu sameeyo dhaqaaq fiican then uu sameeyo retrace oo haddana qiimaha dhaqaaq fiican sameeyo oo retrace sameeyo oo qiimaha dhaqaaq fiican sameeyo oo retrace sameeyo oo sidaas ku socdo, taas waxay ka tarjumaysaa in suuqaas uu buyerska ay gacanta ku hayaan oo ku jiro uptrendy clear ah inuu ku jiro, maadaama uu dhaqaaq aad u fiican uu sameynayo mar walba oo impulse sameeyo oo retrace sameeyo. impulsiga kale meesha oo retrace ka soo sameynayo uma dhaw micnaha. oo tusaale waxa u jeednaa meeshan waa retrace meesha oo retrace ka sameeyay ama waa high meeshaana waa lowgi. waxaan u jeednaa inuu u dhaxeeyo farqi badan inuu u dhaxeeyo. soo marka mar walba aan aragno qaab noocaas waxa waaye waa clear uptrend waaye. waxaas la mid ah oo cagsi ku ah haddii suuq tusaale oo ku jiro impulse oo dhan oo sameeyo oo wax yarna siina sameeyo haddana oo aan aragno inuu impulse kale fiican sameeyay impulse kale oo sidaas wado, taasuna waxay ka tarjumaysaa in salariska ay gacanta ku hayaan iyagana ay controlaan suuqaas, maadaama impulse kasto iyo continuationka oo u dhaxeeyo difference oo fiican ama space fiican oo u dhaxeeyo. okay, taas marka waxaan u naqaanaa waa suuqa markii oo ku jiro trendy, maadaama suuqan haddii oo ku jiro matalan uptrendy aysan macquul ahaynin inuu weligiis uptrendiga sii saarnaado, ay qasab tahay inuu trendy change dhaco, maadaama ay buyerska ay iska wada karan suuqa ay meel uga bixi doonaan. okay, marka haddii aan aragno matalan tusaale ka soo qaad qiimaha impulse ayuu sameeyay, impulse fiican kale ayuu sii sameeyay. okay, markii oo continuation pattern uu sameeyay ayuu qiimihii wuxuu sameeyay impulse sameeyay, isla markii ay wuxuu ku soo laabtay highgiisa ama meeshii oo qiimaha impulsigii uu ku dhamaanayo ku soo laabtay, haddana qiimihii impulse kale sidii ay ugu soo laabtay. okay, waxaan markii qaabkaas camal aan aragno oo sidaas oo kale waxay ka tarjumaysaa in uu momentumka ama xaraaradda buyerska ay yaraatay, maadaama qiimaha markii ay kor wax yar u qaadeen isla markii la soo celiyay kor ay u qaadeen isla markii la soo celiyay kor mar walba ay kor u qaadaan ama mar walba oo impulse sameysmo ama candle oo bullish oo sameysmo isla markiiba qiimihii hoos ayaa la soo celinaa. markii aan sidaas oo kale aragno waxa waaye waa ascending ayuu qiimaha galay, waxayna aad u badan tahay ama aad ugu badan tahay qiimaha inuu reversal sameyn doono uuna geli doono qiimaha downtrend oo geli doono, maadaama qiimaha uu buyerski ay awoodoodii yaraatay. okay, kaas marka waxaan u naqaanaa ascending ayaan u naqaanaa. waana muhiim markii aan joogno price actionka inaad qiimaha ka arki kartid ascending ma ku jiraa ama descending ma ku jiraa inaad qiimaha ka soo saari kartid. okay, waxaa cagsi ku ah marka waxa loo yaqaana descending. okay, matalan haddii aan aragno qiimaha inuu dhaqaaq sameeyay uu sameeyay retrace oo dhaqaaq sameeyay oo retrace sameeyay, qiimahaas downtrend inuu jiray haddii tusaale uu sameeyo retrace haddana isla markii la soo celiyo uu dhaqaaqo isla markii la soo celiyo dhaqaaqo isla markii la soo celiyo, markii aan aragno qaabkaas oo kale waxaan dhihaynaa salariski ama
dadkii oo qiimaha down u waday ayaa waxay la kulmeen cadaadis fara badan ayay la kulmeen soo marka waxa aad u badan qiimaha inuu kor aado ama qiimaha in kor loo qaado ayaa aad u badan maadaama fiiri meeshan impulse ah haysanaa this waa lawgeeni this high-geena waay markii la soo jabiyo waxaan u jeednaa si fiican la soo jabiyay high-geena waa halkaas lawgeena waa meeshaas haddana high-geena waa halka lawgeena waa meeshaas okay markay sidaas dhacday maxaa dhacay high-gi iyo lawgi mar walba oo tusaale lawgan meeshaas lawgaas mar walba la jabiyo isla markaa lagu soo naqdaa lawgan mar walba la jabiyo waa lagu soo naqday lawgan sidaas la sameeyay markii aan sidaas oo kale aragno qiimaha waxay u badan tahay in qiimaha uu kor aad ay u badan tahay ay dhacdo reversal area marka ascending iyo descending ay qiimaha oo muhiim u tahay marka in price action markaan joogno ascending iyo descending waa muhiim waayo waxaan arki karnaa tusaale qiimaha waxaa kaloo dhici karto in qiimaha tusaale oo ascending na galo haddana uu descending galo haddana uu ascending galo markaasoo kale waxaa la dhihi karaa qiimahan this impulse waaye reversal area ayuu joogay haddana buyerski ayaa awood kala sii yeeshay qiimaha sellerski way controlayaan waayo haddii ascendingkan oo sameysmay waxaa qurux badneed qiimaha inuu si fiican impulse sameeyo continuation uu sameeyo laakiin ma aysan dhicin waxaa dhacay qaabkaana dhacay marka waa impulse ascending descending ascending kala sameysma markaasoo kale marka waxaa u naqaanaa qiimahaas wuxuu ku jiraa ranging ayuu gali karaa oo ascending iyo descending ka socon karo markaasoo kalena sellerska iyo buyerska ayaa equal ah okay haddii aan imaano real chartigeena ama lacag caadi aan imaano okay lacagtan waa euroyan time frame kaan isticmaalno waa 1 time frame sida aan hore u soo eegnay oo 1 hour time frame labadan line waxaan u naqaanaa waa high-geena ugu sareeyo waa halkaana waa lawgeena ugu hooseeyo trendiga lagu jiro waa up trendi ayaa lagu jiraa okay inta aanan gudagelin meeshan maxaa ka dhacay waxaan u jeednaa qiimaha impulse fiican ayuu sameeyey okay waxaan u jeednaa markuu impulse sameeyey meeshaas waxaa ka dhacay descending waayo qiimaha markuu impulse sameeyey wuxuu sameeyey kor u aaday isla markii waa qiimaha uu soo dhacay retrace ayaa lagu sameeyey uu soo dhacay retrace ayaa lagu sameeyey soo marka qiimaha that is why impulsigan u dhamaaday oo qiimaha u galay ascending oo u galay okay markuu ascendingan bilaabanayo waxaan u jeednaa this impulse mar walba waa la soo celiyey haddana mar walba waa la soo celinaa waa la soo celiyey sida u jeedno qiimaha mar walba waa la soo celinaa waa la soo celiyey qiimaha marka maadaama sidaas sameeyey wuxuu galay ascending weyn ayuu galay waxayna aad ugu badan tahay qiimaha inaan arki doono asigoo si fiican u dhacayo marka haddii aan aragno qiimaha ku jiro ascending noocaas oo kale macquul maahan ama ma ku fikirayno inaan qiimaha abuurno buy opportunity ilaa ay ka dhacdo qiimaha inuu impulse fiican uu ka sameeyo oo kor ugu baxo micnaha tusaale haddii ascendingkan la xushmeyn waayo waxaa waaye in qiimaha impulse fiican oo kor ugu baxo danna aan continuation pattern meeshaas ugu raadino oo aan baran doono istiraatiijiyadeena oo laba nooc ah z pattern iyo bullet loo yaqaano labadoodaba shuruudahooda iyo sida u shaqeeyaan fiidiyoyaasha soo socdo ayaanu ku falanqeyn doonaa laakiin hadda waxaanu baranaynaa waxyaabaha muhiimka u ah inta aanan gudagelin entry ama inta aanan gudagelin anagoo trade sameynayno okay maadaama marka qiimahan ascending ku jiro waxaan haysanaa this high-geena waa halka lawgeena waa halkaas waxaanu rajaynaynaa in qiimahan uu ascendingkan uu ku jiro then uu si fiican uga bixi doono ama hadda meesha la joogo inuu sidiis ugu soo baxo impulse fiican then continuation uu sameeyo continuation uu sameeyo oo meeshaas ka galo descending ama oo meeshaas ka galo down trend oo meeshaas ka galo okay aan ku sameyno reply aan wadno waxaan u jeednaa qiimaha wuxuu sameeyey retrace candles ayaa sameeyey waayo qiimahan waxaan u jeednaa waa high-geena waa halkaa lawgeena waa halkaas okay this high-geena waa halkaa intaan meesha gaarsiinin okay waxaan u jeednaa marka qiimihii markii aan u jabiyey okay markuu jabiyey marka waxaan fiirinaynaa
waxaa dhici karo maadaama qiimahan hadda impulse aan haysano oo retrace sameeyey haddana oo impulse kale u muuqdo inuu sameeyo haddii qiimahan uu wax yar haddana kor u laabto markaas waxaan dhahaynaa qiimahaas wuxuu galay descending waxayna u badan tahay qiimaha inuu kor aado mar kale micnaha inuu kusii jiro descendingka sorry inuu qiimaha kusii jiro ascendingkiisu inuu kusii jiro ayay u badnaanaysaa haddii aanu qiimaha uusan candle fiican oo high momentum ah uusan ka soo bixin okay waxaan u jeednaa sidaan sheegina dhacday qiimihii wuu ku laabtay soo marka maadaama uu ku laabtay waxaanu dhahaynaa descending ayuu qiimaha ku jiraa descendingkaas oo qiimaha ku jirana waxaanu rajaynaynaa inuu kor aado oo kusii jiro ascendingkiis inuu qiimaha kusii jiro marka waa muhiim inaad aqrin kartid kandalada waxay kuu sheegayaan maadaama laawgii la jebiyey isla markii lagu soo laabtay sidaa darteed ayaa waxaanu dhahaynaa qiimaha wuxuu galay descending kor inuu aado ayana u badan tahay okay haddii aan si fiican u wadno waxaan u jeednaa qiimaha anada ascending kale uu samaystay markuu kor aaday high impulse ama momentum fiican ma uusan samaysan soo marka still wuxuu xushmeynayaa ascendingka ayuu ku jiraa waxaana saadaalinaynaa qiimaha inuu hoos si fiican ugu dhici doono okay still wuxuu ku jiraa ascendingka ayuu ku jiraa maadaama aanan haynin weli high momentum ama candle oo momentum leh maadaama aan haynin sidaan u jeedno meeshan waxaan u jeednaa spike ama week ama fiiq marba haddii aan fiiq aragnana waxaan u badinaynaa inuu qiimaha rangingkiis uu sii wada doono okay sidaan u jeedno hadda wuxuu bilaabay inuu ka baxo ascendingki wuxuu sameeyey impulse continuation impulse ayuu wadaa haddii uu sameeyo tusaale huge impulse uu sameeyo oo si fiican meeshiisa ugu dhaco haddii uu si fiican meeshiisa ugu dhaco waa sidaa rabnay continuation sidaas ayay u soconaysaa laakiin haddii ay dhacdo in qiimaha uu retrace sii wado uu gudaha galo waxay noqonaysaa inuu kusii jiro ascendingkiis inuu ku jiro mana ku fikirayna fursad inaan ka abuurno ilaa uu si clear uga baxo ama trend change price action keena waxyaabaha muhiimka u ah waxaa waaye ilaa trendiga oo si cad iskaga bedelo ma ku fikirayna inaan fursad abuurno okay waxaan u jeednaa qiimaha wuxuu sameeyey impulse fiican ayuu sameeyey oo impulse fiican ay haysanaa okay this waa impulsigeena laakiin impulsigii qiimaha muxuu ku dhamaaday waxaan u jeednaa inuu qiimihii sameeyey week inuu sameeyey marba haddii aan aragna fiiq waxaan u badinaynaa qiimahaas inuu geli karo ranging inuu geli karo okay waxaa dhici doono waxaan u jeednaa sida aan sheegnay qiimaha ranging ayuu galay maadaama uu fiiq samaystay fiiqdaas waxay ka tarjumaysaa inuu momentum lumiyey maadaama momentum lumiyey qiimaha waa inuu wax nasiino galaa dan markuu nastana qiimaha inuu trendiga sii wataa ama reversal uu sameeyaa okay maxaa dhacay waxaan u jeednaa wuxuu ku jira okay waka maadaama marka qiimaha impulse uu sameeyey momentumka markuu lumiyey wadnagasti maxaa dhacay qiimihii inuu galo continuationkaas ama nasiino inuu galo markuu nasiino galayna kadib waxaanu aragnay nice impulse ama impulse aad u qurux badan inaan aragno okay this impulse markaan aragno waxaanu rajaynaynaa haddana sidaan u jeedno impulsigii si fiican ay u socdaa impulse aad u xoogan ay imaaday maadaama qiimahan oo impulse hor ugu jiray ascending uuna siiyey inta impulse ayuu naga siiyey impulsigaas week ayaa meesha ka samaysmay weegan oo cashirkeena kusoo baranay then waxaa meeshaas ka abuurmay continuation pattern so marka hadda waxaan rajaynaynaa marka inuu continuation ka sameeyo then meeshaas aan ka abuurno z formation inaan meeshaas ka abuurno laakiin hadda anaga fursad ma abuurayno maadaama aanan fursad abuuraynin kaliya waxaanu fiirinaynaa ama waxaanu baranaynaa ascending iyo descending sida u dhaqmaan kaliya ayaan meeshan ku baranaynaa cashirkeena maanta okay waxaan u jeednaa impulsigii ama down trendigii in la galay si fiican oo u sameysmay nice impulse aad u qurux badan okay waxaan u jeednaa hadda waxaa qiimaha galay retrace candle ayaa sameysmay oo nasiina ayaana la siiyey okay impulsigeena haddii aan inta keenno maadaama meeshaas hadda waxaa ku jiro sidaan u jeedno counter candle ayaa ku jiro waayo candlekan ma uusan ka hoos marin this is counter candle laakiin candleadana waa trendy candle waay marka cashirkeena hore aan kusoo baranay meeshaan sababta high uga dhiganayno aan meeshaas uga dhiga weynay waayo waxaa ku jiro meeshaan counter candle ayaa ku jiro waayo candlekan hadda meesha yaalo ma uusan ka kor marin mana uusan ka hoos marin this is counter candle
okay qiimaha marka wuxuu galay nasiino okay nasiina ayuu galay qiimaha ilaa uu ka jabiyo lawgaas ama highgaas okay inta aanan guda gelin marka meeshaan hadda waxa inoo muuqdo qiimaha inuu sameynayo ascending qiimaha inuu meeshaan ascending ka sameeyay haddana uu macquul tahay inuu descending kale oo qaabkaas uu sameeyo kale waxaan u jeednaa ascending descending ayuu galay marka sidaan oo kale aragno waxa waaye qiimaha wuxuu ku sii juri doonaa ranginkiisa inuu qiimaha ku sii jiro maadaama fiiri tusaale haddaan soo qaadano this impulse ayaan haysanay qiimahan kadib waxaan helnay continuation pattern ama ascending for continuation ayaa helnay waxay qurux badneed qiimaha inuu sameeyo impulse fiican then continuation oo sidaas u sii dhaco maadaama ay dhici weysay oo haddana sameeyay another descending soo marka waxaan dhahaynaa haddana waxaan rajaynaynaa inuu qiimaha kor aado hadduu kor aado nice impulse hadduu kor u aado ama impulse fiican then continuation ayaan ka rajaynaynaa haddii laakiin ay sii dhacdo inuu asigna si rafasho ah oo low momentum ku sii aado still waxaan rajaynaynaa qiimaha inuu ku sii jiri doono trendigiisa down trend still marka qiimaha hadda wuxuu ku jiraa down trend ascendingkii hore impulse-gii ayaa socdo impulse after impulse waxaa hadda meeshaan ku jiro flag ama large flag waxa u naqaano ayaa qiimaha jiro ama rangin ayuu qiimaha ku jiraa marka qiimaha wuu jabiyey laakiin markuu jabiyey maxaa dhacay fiir tusaale haddii aan soo qaadano qiimaha markuu uu jabiyey isla markii wuxuu ku sameeyey wuu ku soo laabtay maadaama isla markii uu ku soo laabtay soo marka descending ayaa weli lagu jiraa qiimaha descending ayuu xushmeynaya weli okay waxaan u jeednaa marka haddana inuu sameystay haddana another ascending kale inuu qiimihii sameystay marka waa ascending this is ascending descending haddana qiimaha waxaa lagu sameystaa another ascending kale soo marka more likely qiimaha waxay u badan tahay inuu hoos u dhaco soo marka haddii aan aragno qaabkan oo kale oo this impulse ascending descending ascending marka waxay inoo tilmaamaysaa qiimaha inuu ku jiro flag ama continuation pattern inuu ku jiro soo marka maanta waxaan intaas ku baranay waxa loo yaqaan ascending iyo descending ayaan ku baranay soo marka waa muhiim qofku inuu kala saari karo ascending iyo descending inuu fiirin karo trendiga markii uu trendi haddii uu socdo down trendi ah maxaa looga baxay inuu fiirin karo marka qeybaheena kale waxaanu ku baran doonaa waxyaabaha muhiimka u ah ama waxaanu gudageli doonaa istiraatiijiyadeena waxay ku shaqeyso si directly ah ayaan gudageli doonaa istiraatiijiyadeena marka laba ay noqon doontaa mid continuation ah oo aan u naqaano Z formation iyo waxaa jirto mid kale oo ah oo risk entry ah taasoo aan u naqaano bullet u naqaano marka shirada soo socdo ayaanu kusoo gudbin doonaa insha Allah marka intaas aynu kusoo gabagabeynayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.